الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قدومية أقاسمها حرير كدقموينك أقاسمها وعيدة سوقيضة أقاسمها مشاريع ده أفيانك مامولك قبل كبنادر قدوميها دقمة حمر ججب مسؤولين تا reer xamar jajab iyo mas'uuliyiinta kale nagala soo qayb gashay munaasabadan xarig jarka dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah. bacda salaam waxa sharaf noo ah maantay inaan xariga ka jarno kawaanka Ancelotti oo gobolka Banaadir taariikh weyn ku leh. Ancelotti waa magac talyaani ah oo tilmaamaya suuqaanu inuu ahaa xilligii talyaaniga suuq la sameeyey. marka waxaad maqlaysaa Ancelotti, waxaad maqlaysaa Martini, waxaad maqlaysaa Digfer, waxaad maqlaysaa Lancelotti, waxaad maqlaysaa Via Roma. waxaasoo dhan waa magacyo talyaani waay. magacyada Via Roma macnaheedu waa wadada Roma. Romana waa caasimadda talyaaniga waay. laakiin magacyada kale ee Ancelotti, Lancelotti, Martini, Digfer dadkii halkan xukumi jiray ee talyaaniga ahaa oo gumaysiga ku joogay dadaal sameeyo ama isbitaal dhisay ama mataqaanaa suuq dhisay ayaa loogu magac daray. horta dad wax qabtay, dadaalay, dalka u dhintay in dalkaanu xor noqdo ilaahay ka sokow ayagu sabab u ahaa ayaa Soomaaliya leedahay. marka waa naga dhiman tahay inaan fahamno marka magacyadaas aan xambaarsannahay oo gumaysigii inaan beddelno oo dadkeenna waxtarka ah wax noo soo qabtay magacooda inaan ku beddelno waa naga dhiman tahay. waa gaaraynaa haddii aan leedmo. gaaritaanku macnaha ma aha da' ee waa fahamka waay. fahamkaas marka inaad sidaa aan u wada fahamno waa muhim. midda labaad kawaanka Ancelotti yacni kawaan weyn oo aad looga adeegto oo sida suuqaanu u camiran yahay ka daran asagana u camiran ayuu ahaan jiray. annagoo ciyaal yaryar ah ayaan mataqaanaa halkaan imaan jirno adeegna loo kaga soo diri jiray. marka si fiican u naqaan burburkii ayuu ku dumay gebi ahaanba waa la dhisay kadibna mar walba oo darxumaado waa la dayactirayay. marka dib u dhiskii ugu dambeeyey ayaa maanta ay noo suura gashay inaan horena u dhagax dhigno haddana aan xarig jarno. waxaa reer xamar jajab looga fadhiyaa marka oo maantay inaan mataqaanaa ay hortiinna aad taagantihiin ay fursad ii tahay. meeshu hadday foolxun tahay oo waddo laga soo galo ayaan lahayn oo daraagiistihiisu ay badan yahay, qofkiisa oo daroogaysan oo badan tahay oo qofkii yimaad la furanaayo waa laga kala carara. dadka nabad ay rabaan, meel nadiif ay rabaan, meel dhaldhalaalaysa ay rabaan. waddadii laydin soo mari lahaa dhiiqa waay. dhiiqada marka waad ogtihiin marar badana annaga aan maamulka gobolka Banaadir xoogga saaray oo waddadii laga shaqeeyey oo meelo badan qashinka laga qaado. laakiin haddana meelo gaar ah oo mataqaanaa qashinka lagu xafido ee baabuurta degmooyinka qashinka ka qaada oo ay ka qaado ma samaysanina adinka. dhiiqada iyo wasaqda waxaa lagu soo daayaa laamiga, qashinkana waxaa la dhigaa jidadka. haddeertaanaan soo marnay jidad annagoo og weliba in maamulka degmadu dadaalo, laakiin intaas ka badana uga fadhina. marka bulshadu marka ay rabto oo ay go'aansato inay horu marto waa la horumarin karaa. laakiin haddii
dad tay ahaan dadka ay liitaan ama aragti ahaan ee ay hoos kuu jiidanayaan ciddii dhaanto oo adiga ku kaashanaysa oo ku garab istaagaysa caawinaysa marka waxaa laydinka rabaa kaalinta daatay gabdhaha qudaarta u sheegayay oo aan dhahayay aan suuqa dhisno aan soo camirno aan dad keenno oo aan ganacsi keenno laakiin nadaafadda ku dadaala dawladda hoose laga rabaa ku celcelinaysa marka waa run dawladda hoose waa laga rabaa oo hadda kawaankaama dawladda hoose nadiif ka dhigtoo ka shaqaysa meelo badan dawladda hoose dhistay oo macnaha cabirtay oo wadooyin ka bixisay oo waa fahamtay laakiin haddana adaa lagaa rabaa inaadan jidka qashin ku shubin adigaa lagaa rabaa inaadan dhiiqa jidka aadan ku daadin adaa lagaa rabaa dawladda hoose lagama rabo marka bulshadu inay dadaasho oo dhinaceeda ay ka dadaasho ayaan idinka codsanaynaa oo idinka rabnaa maamulka degmada ee hadda guddoomiyihiisa uu kan yahay fadhiga ka kaca wax ka bedela yacni degmada Xamar Jajab wax ka bedela laamiyada nasiibka u helay dib u dhiska uu ka mid yahay maanta laamigaana dib loo dhisay cid isdhahaysa ma jirto waa ognahay in dhibaatooyin ay jiraan oo laamigu uu ka hooseeyo xaafadaha waa bari ee Xamar Jajab ay dalcaado dheer saaran yihiin oo ay sahlan tahay biyo la soo daadiyo inay laamiga saal ku yimaadeen laakiin in laamiga la wasaqeynaa la rabaa waa fahamtay xoogaa marka la qaylqayliyo wasaqdiina waa xafidatay marka wax yar xoogaa la sii jeedo leedika mashquulo laamiga dhiiqa meeran waa dad yow marka waxa idinka rabaa laamigiina waay meesha adinka ku nool suuqa adinka ku ganacsada ama ka adeegta yani qof ku xumaynine adinku ishagaajiya marka ishagaajisaan annagana kaalinteena waa qaadanaynaa laakiin bulsho aan la garab qaban karin oo imtixaana oo maashaan maanta qashiga ka qaado haddana berikii ka badan uu yaallo waana niyad jebinaya marka waxaan idinka rabnaa waddada afasyonika soo bilow ilaa laga soo gaarayo biyaasa leebaro ama ceelgaabta iyo Xamarweyne meeshay iska jiraan Shaneema Afrika la dhihi jiray intaas inta u dhaxaysa ina dhiiqa lagu argaa idinka raba reer Xamar Jajab oo mas'uuliyiin iyo shacab leh intaas laga rabaa kaalintaas qaata min fadlakum annagana kaalinteena hanala kula xisaabtamo oo hanala yiraahdo kaalinteen waa qaadanay sidaana u dadaalnay oo adinka kiini hanala yiraahdo waa qaadanaynaa marka waxaa isku ognahay reer Xamar Jajabow inaan dhiiqo iyo mataqaanaa wax jidkii alla la arki doonin suuqu in mataqaanaa suuq bilic loo nadiif oo jidadkiisa la dhisan inuu noqdo baabuurtu iska soo gudbi karaan dhinac walba inaan qashinka wadooyinka la dhigin intaas idinka ka fadhina amniga kuwa amni darada wada ama kuwa daroogada caba ha ahaade ama kuwa heer habaarka oo dadka isku qarxiya ama bambada tuura ahaade soo sheega yani hay'adaha amniga hal idinka qabto annaga maxaan nidhaa halku dhigeena muxuu ahaa bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah marka bulshadiyo nabad ah iyo beledkiyo nadiif ah labadaas idinka rabaa aniga labadaas nakaashada annaga wixii idinka tambadiya ama idinka awood badan annaga inta u taagan wixii naga awood badiya dawladdii federaalka Soomaaliya ayaa caasimadda degan oo mataqaanaa aan ayagana ku qayl dhaalsanaynaa markii culays naga tan badan yimaad laakiin kaalintiina soo gaara intaas rabaa inaan reer Xamar Jajab iraado kawaankiina xafita kawaankiina ka ilaashada dadka oo dad xunka ah kawaan nadiif ah lagu ganacsado qofka ganacsadaha ah la soo dhaweeyo waxaan idinka rajaynayaa dad hurdada ka kacay soo jeeda habeen iyo maalin nadaafadooda iyo bilicdooda iyo horumarkooda ka shaqeynaa inaan noqotiin wabillahi tawfiiq. Assalamu alaykum.